social media waxa uu waqti xaadir ka noqday balwad aad u khatar badan oo ka khatar badan marka la barbar dhigo balwadihii hore ee ay naqaanay sababtoo ah social media waa waqti baabiyaha ugu weyn hadda waqti xaadirkan aynu joogno social media dhammaan bulshadeenu waxa ay ku bixisaa waqti aad u badan yar iyo weynba maalintii qaar waxay ku bixiyaan 10 saacadood 15 saacadood 9 saacadood waqtiyadaas badan ee inaga baxaya social media tabadelkeeda wax faa'iido ah oo inaga soo galaa ma jirto marka la barbar dhigo waqtiga inaga baxaya inta badan bulshadeenu waa dad inta badan ka cawda dhanka bilaa camalka iyo shaqo la'aanta iyo wax soo saar yaraanta waxaan aragtideeda qabaa in social media uu kamid yahay waxyaalaha dhaqaalaheena aad ka hoos ugu dhigay iyo wax soo saarkeenaba maadaama uu yahay waqti baabiyaha ugu weyn ee waqti xaadirkan ina haysta iyo sidoo kale hadii la eego dhanka amnigaba hoos u dhac aad u weyn buu ku keenaya marka social media waxa inaga baxa waqti aad u badan waxna kama faa'iidno haddaba qof walba waxa loo baahan yahay in aad isla xisaabtanto oo aad naftaada la xisaabtanto oo maalin walba waqtiga kaaga baxa social media aad bal eegto haddaba bal sideed ku ogaan kartaa maalin walba ama daily waqtiga kaaga baxa ama bil ahaan waqtiga aad ku bixiso inta saacadood aad ku bixiso social media ee kaaga qasaaro maalin walba sideed ku ogaan kartaa waxa aad sameyn doontaa talaabooyinkan aan ku sheegay ayaad raaci doontaa horta marka hore si aad u ogaato waqtiga kaaga baxa ugu horeyn waxaad tagtaa telefoonkaaga haddii iPhone yahay settings kaaga tagaysaa kadibna waxaad ku qoraysaa screen time marka aad ku qorto halkan shaashada kaaga muuqata waxa aad taaban doontaa iconkan screen time ay ku qoran tahay inta kadib waxa aad arki doontaa waqtiga kaaga baxa maalin walba social media ee aad ku qarash garayso tusaale ahaan oo kale average buu ku siinayaa daily average time ka aad ku bixiso tusaale ahaan wuxuu ku leeyahay waa 9 saacadood bal hadda waxaad comment-ka nagula wadaagtaa inta saacadood ee adigu aad ku bixiso maalin walba social media ee kaaga baxa sidoo kalena waxa aad soo raacaysaa oo aad comment-ka nagula wadaagtaa waxa aad ka faa'iido adduunyada qofku waxa uu waqtiga ku bixiyaa waa wax uu faa'iido ka helayo qofka bilaadanka ahi maalinka dhan waxa uu haystaa 24 saacadood 24 saacadood 8 saacadood waxa loogu talagalay inuu seexdo oo uu hurdo waxa laga yaabaa waxa ku soo haray 14 saacadood 14 saacadood ee ku soo haray marka tusaale ahaan oo kale aad 10 saacadood social media aad ku qarash garayso labada saacadood soo harayna waa intaad wax cunayso intaad cadaynayso intaad suuligelayso waxyaalahaas ku baxaysa waayahay maxaa ka soo galay qofka bilaadanka ahi 8 saacadood ee uu waqtigiisa ka faa'iideysan lahaa ee uu wax soo saar ku sameyn lahaa ee uu wax ku sameyn lahaa hadday dhaqaale noqoto iyo hadday noqoto fikrad cusub uu ku abuuri lahaa 8 saacadood ee waxa soo dhanba ku qaban lahaa haddii social media qofku ku qaato maxaa faa'iido ah ee noloshiisa uu horumar gaarayo marka qof walba waxa aan kala talinayaa social media in uu noqdo hadda balwad ama waxaan aaminsanahay horena aan u aaminsanaa kulli maalmaha kamidana waa loo aqoonsan doonaa social media inuu yahay balwad caalamiya oo laakiinse maadaama dadka waxaan faa'iidada ku qaba aanay rabin inay ku sheegaan balwad laakiin anigu aragtideeda waxaan u aqoonsaday balwad caalamiya oo aad u khasaaro badan oo hadday noqoto dhankii waqtiga ka dilaysa iyo hadday noqoto dhankii wax soo saarka intaba waayo 8 saacadood qofka maalin walba social media ku qarash gareynay 8 saacadood beeraha lagu beeraa sanadka dhan waxaad cuni lahayd bad kula soo bixi kartaa hadaad beer ku beerto maanta marka social media waxa laga qaadaa niyad jab laga qaadaa xanuuno badan oo dad badan ay dhakhtar u tagaan hadda oo social media sababa jira niyad jab hadday noqoto in qofkii shaqo qabsan kari waayo inuu caajis badan dareemo inuu ma garanaysaa werwer dareemo in uu shaqo kasto haya xataa qofkii isagoo shaqo haysta oo haysta businesskiisii waqti uu kaga shaqaysto iyo niyadiiba aanu siin karin businesskiisii sababta ugu weyn ee keentana waxa weeyaan waa social media waayo waa balwad uu qofkani qabatimay waxa laga yaabaa iyadoo shaqo ku taalo inaad ayr mobilkiis kala soo baxayso oo aad iska eeganayso iska daawanayso waxaan loo baahnayn waxyaalahaas oo dhani oo waxyaalo dib u dhac kugu keenaya noloshaada oo dhan dib u dhigaya marka social media waxaan kala talinayaa qof kasta oo jecel in waqtigiisa ka faa'iideysto oo uu horumar gaaro waxaan kala talinayaa in uu social media iska xadido waqtiga uu isticmaalayo sidee ayaad siga xadidi kartaa waxa aad u sameyn kartaa time limit waxa la yiraahdo u sameyn kartaa limit maalin walba tusaale ahaan oo kale 1 hour ayaad ku buuxin kartaa mobilkaaga inaad social media isticmaasho settings kaaga tagaysaa
waxaad tegaysaa screen time meesha ay ku qoran tahay tegaysaa kadibna waxa aad dooranaysaa app limit meel ay ku qoran tahay tegaysaa kadibna social media taabanaysaa inta kadib waxa aad select galaysaa dhammaan applicationada social media ee aan faa'iido ku lahayn ama aan faa'iido ka helayn kadibna dhammaantood intaad wada select galayso limit u wada samee waxa taabataa add limit baad taabanaysaa inta kadib isha yar baad furaysaa kadib isha yar markaad furto waxaad galinaysaa oo aad dooranaysaa 1 hour baad ku buuxinaysaa 1 hour markaad ku buuxiso maalintii tusaale ahaan oo kale hal saac ayay magaranaysaa ayaad ugu talagelaysaa inaad social media aad isticmaasho inta kadib limitka halka saac ah ee aad u samaysay marka uu ka dhamaado waxa laga rabaa inaad noqoto qof go'aan leh oo go'aankiisa aan ka waawacan waxa laga rabaa in aadan social media gelin marka halka saac ama waqtiga aad ugu talagashay in aad maalin walba isticmaasho social media uu ka gaaro telefoonku isa ka xiri doona ama applicationku wuxuu ku soo saari doonaa app limit ayaad gaadhay limitka isticmaalaysa ayaad gaadho ku oranaya kadibna waa in aadan limitka ka hor iman oo aad qorshahaaga iyo nidaamkaaga aad ku socotaa si aad adduunyadan guul uga gaadho oo aad horumar uga samayso waqtigaaguna aanu maalin walba wax maalayacniya oo aanad faa'iido ka helin aanu kaaga hadlaa marka waxaan rajeynayaa haddii aad muuqaalkaygan ka faa'iidaysatay inaad la wadaagto dhammaan asxaabtaada iyo ehelkaaga aad jeceshahay si ay balwadan ay iskaga yareeyaan ugana faa'iidaystaan waqtigooda aad iyo aad baad ugu mahadsantahay daawashada muuqaalkaygan mahadsan